kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barta YouTube-ka iyo Facebook-ga aan ku leeyahay Burhan Channel waatana waa quruxdii oo qofa oo safara diyaaradda ina raacday kan ina raacday kee kursoon tahay kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayo xiriir miyaa ka dhaxeeya Shiina Culey iyo Manaal Beeldaaje daawade haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo barteena YouTube-ka aad timaado waxaan ka codsanayaa in aad nagu soo biirto muuqaalkan aad like saarto mahadsanid labadan xidig ee kala ah Shiina Culey iyo Manaal Beeldaaje oo ah xilligan shakhsiyaadka ugu saameynta badan looguna jecel yahay social media laakiin markii ugu horeysay ay labadooda ay hal meel ka soo wada muuqdaan ayaa waxa lagu bartay in ay yihiin gabar iyo abtigeed sida ku cad waraysiyo ay hore u bixiyeen laakiinse hadda xiriirka abtinimo ee u dhaxeeya waxa ku wareersan Soomaalida intooda badan waxa ayna ka bixiyeen aragtiyo kala duwan qaar ayaa waxa ay aaminsan yihiin in uu ka dhaxeeyo xiriir ka duwan kan abtinimo walow dadka intooda kalena ay aaminsan yihiin kaliya in ay tahay musalsal ay ku qaraxsanayaan maqaaxidooda haddaba kuwa aaminsan inuu xiriir jecel ka dhaxeeyo maxay ku aamineen live ay soo wada galeen bil ka hor ayaa waxa ay ku sheeg live ay soo wada galeen bil ka hor ayaa Shiina Culey waxa uu weydiiyay su'aal ah Manaal noo sheeg qofka xiriirka uu kala dhaxeeyo ee aad qarinayso Manaal ayaa waxa ay ku jawaabtay sida tan hadaa iga midsanaa saarsana adna ninka ka qarisay oo yaxaanta ka qarisay oo dadka Soomaaliya ka qarisay oo kilkilada galasay dad kala wadaag dad kala wadaag waxa intaas soo qirnaysano martan ina caawo iga hiisay Shiina Culey arabtan ina banaanka soo dhigo soo sheeg ninka waa kuma ninkaas nagama dheera ma fahanteen waaba kalaa ma magaciisa sheeg magaciisa ku dhawaa Shiina Culey ciyaal faar shaqadiina qabsada bari TikTok aan noo balan shaqadiina qabsada dhinaca kale barnaamij ay soo gudbiyaan adna iyo saxaaf ayaa waxa marti ku ahaa Shiina Culey waxaana lagu weydiiyay noo sheeg xiriirka abtinimo ee Manaal kala dhaxeeya waa noocee Shiina Culey ayaa waxa uu ku jawaabay asagana isla sidaan waayahay su'aashan aan raacsada Shiinow waxa la yiri fulay xantiisa ma moogo dadka caanka ana xantooda ma moogo waxa suuqa yaala la isla dhaxmarayo way la socdaan in kasto Manaal afkeeda ay ka cadeysay haddana dad badan ayaa aaminsan in wax kama jiraan uu yahay hadalkii Manaal ee ku aadana in adigu aad abtigeed tahay bal faahfaahinta ay bixisay in ka badan aadna sii kartid muxuu yahay horta sida xaqiiqda ah muuqaaladeeda qofka daawada uu arkaya mar walba anoo leh abti ama iyadoo abti leh laakiin saxaafo waana daawaday waraysigii ay idin siisay haddii keeda lagu qanci waayay ama kii hore aan halka aan labadeeduba muuqaalada aan ka niri isagana lagu qanci waayay mid aan halka ka iraahdana in lagu qancayo u malayn maayo bini aadankana asalkoodaba ilaahay uun baa qancin kara marka haddii ciddii intaa ku qanacday ha ku qanacdo ciddii aan ku qancayna haddii iyada cikrabkoog isla barnaamijkaas ayaa Manaal waxa lagu weydiiyay in ay sheegto waxa kala dhaxeeya Shiina Culey iyo qaabka uu abtinimo ugu noqday Manaal ayaa waxa ay ku jawaabtay sidaan waxa dhacday in isaga iyo adiguba aad ka wada jawaabtaan su'aalahaasi oo si cad aad u sheegtaan laakiin kuwa ayaanay weli fahmin ulajeedka dhabta ah iyo weliba xiriirka dhabta wuxuu yahay anigoo bulshada ka wakiil ah dadkaasi qaarna raba inaan u cadeeyo waxa jiro ayaan raba inaan ku weydiiyo su'aal ah muxuu yahay xiriirka kala dhaxeeya Shiina Culey muxuu ku yahay horta dad badan ayaa su'aashan soo weydiiyay anigana marar ayadoon soo u faahfaahsaneen meelaha qaar ee social media waa ku soo qortay Shiina Culey dadka hore isku meelkeen aqoonin hadda isku keen barteen laakiin anaga waxa ay dad hore isku yaqaanay Shiina Culey waa abtigay labaad dhabta ah ma ahan dad badan waxay yiraahdeen waa qabiil ahaan ayuu abti ugu yahay waa ogtihiin Shiina Culey inuusan ahayn qabiilka hooyadii ama uusan ahayn qabiil aniga aan ahay
dadka marka waxaan rajeynayaa dadka inay hadda aamini doonaan inuu yahay abtigay labaad ee dhabta ah Shiina Culey. ugu dambeyntiina hadalhaynta ugu weyn ayaa noqotay muuqaal ay soo gelisay Manaal barteeda YouTube-ka waxa ayna ciwaan uga dhigtay aniga iyo Shiina Culey maxaa naga dhaxeeya iyo safar 8 saacadood qaatay. muuqaalka ayaa waxa ay muhiimadiisu ahayd in Manaal ay diyaarad weysay Shiina Culeyna uu u quuri waayay in ay tareen raacdo sidaasna ay cidlo ku dareento waana sababta noqotay in uu 8 saacadood safar ah uu kaga qaado Jarmalka ilaa Austria. aniga ahaan waxa ay ila tahay waxaan oo dhan in ay yihiin kaliya in ay iska rabaan ku mashquulkaas iyo bumbuunista in magacooda aan laga waynin baraha bulshada. daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo aad timaado barteena YouTube-ka waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalka like saarto naguna soo biirto mahadsanid. ninkan inuu sawirkeyga saarsado tii horeetana lagaga badiyey inuu waxa weeyaan mataqaanaa bacdiisa banaanka loo soo dhigo dhaqsada marka شن بقول نقرر درب ما شاء الله تبارك الله يا ويتاس بلداتش ما شاء الله بلداتش يا شياسكو هيا تمنكن صور كي مجعشين بروفيل كذا إنا كسر مو وكاقادي ولا ورك بدل حد جيو قرطي يكون بدل قبضة كرجة قبي ونوه سوقه صدق بري بروفيل كذا شلون كي هو اسكت سي هاي بروفيل أضياد ويه يا سي إنسان كذا أرميش كعية أرميش قاعدة ورهالكاس تقول تاجين أو أبا يا أبتيجا أو صور كيجا لا شيء تاني هذا واتساب كوسو دري هذا كوسو دري واتساب هذا كوسو دري صور كيجا صدق بري وأنا صور كيجا سارستيت يا هالكاس كمورن نكاد غيرنا وشينا علي سؤالي هالكا كمورن صور كيجا حتى أنا صارت واي وأنا صارت تو دد بدن وأبين كشحنا يسي دد بدن سي بلو كوساران صور كشينا على وين صار استوائي حتى هنا واحد تري وكا مرخان تيجي صوص شقية هدول الدربي خبصة ها سي دريمي حجم إندي ما بريك لا إندي ما بريك لا كده يبعث هاوي جيف كان اللي قاله أنا سوق عيا وحيرة حرين وقتها السعودية وإن دافتو طبعاً وحيرة يعني كلمة صور كا موجودان ولما كان أدري صوص أرسل سمتقن أنا بور كلا أدري ولما لا صوص أرسل إن شاء الله أما كيان قرية بورتويد إنجليز كسو كلا أدري لا رك بدنا بينك سحنسي بلوك أوصل يمنا أمورك كاتشر هلا قبل بركي أمورك كاتشر تشوف رجع أمورك كم ذبيا وربي على ريالو وربي الله عليكم هل كان تغوهري بروفيل كهلا إسارو إنستغرام كا يتيك توك ولا حتى سوق ثم يسوبر